sanadkii 1989 ayay ahayd markii sarkaal ka tirsan hay'adda sirdoonka Russia Federal Security Service oo ay wehelinayeen saraakiil ka tirsan hay'addaasi uu warbaahinta siiyey falal musuqmaasuq iyo kuwo basaasnimo oo ay ka dambeeyeen mas'uuliyiin u dhashay jamhuuriyadda Russia. xilligaasina waa markii uu madaxii sirdoonka Russia ee xilligaasi Vladimir Putin oo xilkii iyo darajadiiba ka xayubiyey saraakiishaasi. sarkaalka kaliya ee xilligaa wejigiisa la muujiyey ee kooxda ka mid ahaa waxa uu ahaa Alexander Levenechko oo xubin muhiim ah ka ahaa hay'adda sirdoonka federaalka Russia waana basaaska tan iyo bilowgii 80-meeyadii ee qarnigeena dhaafay ka soo shaqaynayay hay'adda sirdoonka dalkii Midowgii Soviyeeti ee KGB markii dambena ku wareegay hay'adda sirdoonka Russia ee FSC. sanadkii 1997 ayay ahayd markii loo bedelay qaybta hay'adda ka tirsan ee qaabilsan burburinta kooxaha dambe falayaasha abaabulan loo yaqaano waana shaqadii uu ku ogaaday falalka arxan-darrada ee ay sirdoonka Russia fulinayeen ee haddana lagu eedeyn jiray dagaalyahaninta reer Chechnya. sanadkii 1999 ayaa Mr. Alexander laga casilay shaqadaasi kadib markii si khasab ah looga saxiixay nuqul lagu amrayo in laga mamnuucay inaanu Russia dhan uga bixi karin. laakiin bishii Oktoobar ee sanadkii 2000 waxa uu suura gashay inuu ka baxsado Russia isagoo wata qoyskiisii waxaana uu sifo magangeliya doon ku digay dalka Britain. xilligaa waxa uu suura gashay inuu kashifo oo banaanka soo dhigo macluumaad dhanka sirdoonka oo muhiimad ballaaran lahaa waxaana ka mid ahaa qaraxyo ay sirdoonka Russia laftoodu ka sameeyeen gudaha waddankooda qaraxyada oo lagu eedeyn jiray muslimiinta Chechnya dabeetana sabab looga dhigan jiray howlgallada ciidamada Russia ka wadan jamhuuriyaddaasi Chechnya. muddo yar dabadeed Levenechko waxaa gaaray basaasin Ruush ah oo daba socday oo ay hore uga wada tirsanaan jireen hay'adda KGB laakiin aanay aqoonin kuwaas oo shaah ay meel makhaayada kula cabeen ugu daray maadada kiimikada ee plutonium. waxay ka bacdi markii uu dib ugu noqday maalinta gurigiisii waxa uu dareemay Mr. Levenechko daal fara badan iyo xanuun dheeraada. dhakhtarkii ugu dhawaa ee loo qaadayna waxa uu baaritaankiisa ku sheegay in la sameeyay Mr. Levenechko oo ay maadada lagu sameeyay jirkiisa wada saaqday oo wada gaadhay. baaritaan boolisnimo ay si wada jira u sameeyeen cutubiyada Scotland Yard iyo hay'adaha sirdoonka ee Britain iyo Jarmalku waxa isna ka soo baxday in jirka Mr. Levenechko lagu dhex beeray maadada sunta ee kiimikada ee plutonium. falkaana ay fuliyeen labadii basaas ee uu shaah la cabay kuwaas oo falka ka bacdi si degdeg ah uga baxay dalka Ingiriiska iyagoo diyaarad toos oo raacay dhanka magaalada Moscow maadaama ay ka degdegayeen inta aanay suntaasi ku faafin xubnaha jirka ee Mr. Levenechko. muddo kooban ka bacdi waxa uu noqday bukaan dhulyaal ah oo aan dhaqdhaqaaq u sameeyay daayay xitaa nuxsan karin waana xilligii uu dalbaday in aabihii loogu yeedho si uu dardaarankiisa ugu sheego. dardaarankii uu Mr. Alexander Levenechko u sheegay aabihiina waxay ahayd in uu xilli hore islaamay oo uu yahay qof muslima waxaana uu ka dalbaday aabihii in geeridiisa ka bacdi lagu daro xabaalaha muslimiinta. 2 maalmood ka bacdi dardaarankaana waa uu geeriyooday geesigii muslimiinta Russia ka mid ahaa ee Alexander Levenechko waxaana lagu aasay xabaalo ay muslimiintu ku leeyihiin magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska. naxariistiisa Allah siiyo Mr. Levenechko. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.